waa heestani Nimca Habi oo labadan week adduunka dhan galgishay. waa heestii 4 sano ka hor ay qaaday oo hadda u qaraxday oo kala kacday. inaba caadi maaha, nasiibkeeda ayaa caawiyay ayaa dhihi karnaa. inkasta hees wax oo la iskugu hambaliyeeyo ama lagu farxay aan ahayn, laakiin ayada ayaa jeclaato jooskeeda tahay. marka hambali ayaa leenahay maadaama ayada jooskeeda ay tahay gabar walaasheena Soomaaliyeedna ay tahay. 4 sano ka hor ayay qaaday heestan weyn u kala kacday. walaalihayga qaaliga salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda qaaliga waa idin salaamay meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin. waa markale walaashiina Khruja. ugu horeyn hadaa channel ku cusub tahay subscribe saar, hadaa hore noola joogtay qaybta like naga dhis, fariimo waxa qabtaan commentiga noogu reeba. soo dhawaad walaalihayga qaaliga maanta maxay rabtaa walaashiina Khruja inay ka hadasho meeshan u soo fadhiisatay. wax kala ma walaalihayga qaaliga waxaa rabaa meeshaneeti inaa ugu hambaliyeeyo walaasheena Nimca Habi maadaama gabar walaasheena oo Soomaaliyeed ay tahay. hees 4 sano ka hor ay qaaday oo hadda u kala kacday ayaan rabnaa inaan ugu hambaliyeeno maadaama ayada ee laga aqoonsaday adduunka oo idil. muhiimada heesta maaha, laakiin waxaa waaye muhiimada ayada farxadeeda ayaa ugu hambaliyeenaynaa. inkastoo hees wax la iskugu hambaliyeeyo ayna ahayn wax fiican ahayn ay munkar tahay, laakiin ayada ayaa u hambaliyeenaynaa qaasatan ayada maadaama ay tahay gabar walaasheena oo Soomaaliyeed. inaa garab siino ugu hambaliyeeno waa wax ay nagu leedahay heesta ka sokoo. waxaan ugu hambaliyeenaynaa farxadeeda maadaama maanta adduunka oo idil laga aqoonsaday qof oo Soomaaliya oo heesaaye ama aday youtuberad ama wax saas oo adduunka sida ayada maanta looga aqoonsado ma jirto. marka waa ku faraxsanaana hambali ayaa leenahay maadaama gabar walaasheena ay tahay maantana ayada la hadal haayo. intaas ayaa ugu hambaliyeenaynaa walaasheena macaan. maaha inaa heesta ugu hambaliyeenayna ama aan ku taageersanahay inay heesto ma jecliinay maxaa la dhihi jiray heesaha aniga ma taageersani, laakiin walaasheena macaan ayada waxay jeceshahay ayaa ninkan la jecelnahna. hambali ayaa leenahay hambali walaasheeda Nimca Habi ku hambaliyeenaynaa maadaama maanta adduunka laga aqoonsaday. waa ku faraxsanahay kama xumin, nasiibkaaga ayaa ku caawiyay ayaa dhihi karnaa. qof walba maanta way jeceshahay in la aqoonsado adduunka oo idil oo maxaa la dhihi jiray la hadal haayo. hadal hayntu waa sharaf mi hore u dhaheen. marka qof walba ay jeceshahay in maanta la hadal haayo, laakiin wax oo sharaf leh oo wax fiican ah sameys lagu hadal haayo. qof walba ay jeceshahay waxyaabaha xun kuma jiraan dad waxyaabaha xun sameeyaa jiro oo waxyaabahaas xun dartood maanta dhan loo hadal haayo. ilaa aniga kuri waxyaabihii xun. marka walaasheena waxaa leenahay maadaama maanta ay adduunka dhan laga hadal haayo laga aqoonsaday waa kuugu hambaliyeenaynaa. hambaliyo ayaa ku dhaheynaa. marka asxaabteyda qaaliga adigan u hambaliye taageera walaashiina. youtube ayay leedahay, youtube-keeda wax subscribe badan ma haysto, subscribe u saara dhiirigeliya. tiktok ayay sameysatay. marka waxaa leenahay walaasheena hambaliyo. Soomaali Maxamed adiga ayay niga dhalatay, adikana subscribe ku saara caawiya walaashiina. ayadana ugu hambaliyeenaynaa maanta maadaama qof caan way ahayd, laakiin maanta laba jibaar double ay noqotay ayaa ugu hambaliyeenaynaa. farxadeeda ay qaybsanaynaa walaasheena macaan. aad ayaan kuugu faraxsanahay maadaama gabar walaasheena oo Soomaaliyeed oo maanta Soomaaliya oo dhan matalayso adduunkana laga hadal haayo. intaas ayaan ku faraxsanahay. marka walaalihayga qaaliga walaashay ayaa u hambaliyeenayay. intaas hambali ayaga ahayd. waa kana sawirkan ayaan soo gelinayaa. fiir waa kana sawirkaneeti waaye. dadka heesteeda ayay ku damaashadayaan. tigti calaamad waa la siiyay, dad iska soo qaadayo.